السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصاحبكي أحمد عبد الله فيديو قام waxaan doonayaa inaan kaga hadlo wax loo yaqaano dema account ama dema trading oo micnaheedu yahay account yani fake ah oo aan real ahayn oo lacag dhabi aanay ku jirin oo loogu talagalay dadku inay ku barbartaan sida exchange-ka u isticmaali lahaayeen ama base haday yihiin dadka traderska loo yaqaano isticmaala technical analysis-ku si ay istiraatiijiyadahooda ugu tijaabsan lahaayeen iyadoo haba yaraatee wax lacag aanay ka khasaaraynin ama aan riski gelinaynin lacagtooda dhabta ah dabcan akoonada demo tradingka waxa aad loogu yaqaanay forex-ka waagi dadku forex-ka aad u isticmaali jireen ama dadkii forex-ka ka yimid ee crypto soo galay ayaa si fiican u garanaya marka haddana dabcan exchange-yadu waxay soo kordhiyeen qaar badan oo kamidi demo account oo runtii faa'iido badan leh haddaba si aad demo account-ka uga faa'iidaysato aad u gasho kulli anigu exchange-yada aan arkay ilaa hadda demo account-ka bixiya Soomaaliyana ka shaqeeya waxa kamid ah exchange-ka OKX iyo exchange-ka Bybit hadda waxaynu ku jirnaa horteena ka muuqda exchange-ka OKX dabcan kan waa account-kaygii si markaa aynu u galno demo account-ka waxaad ku dhufan doontaa corner-ka sare ee bidix kadibna qaybtan shortcuts-ka waxaad u jeedaan meel ay ku qoran tahay demo trading isagaan ku dhufan doonaa kadibna halkan hoose ay ku qoran tahay start demo trading ayaad ku sii dhufan doontaa qaybtan ayaynu soo galnay halka ugu sareysa waxaad ku aragtaa waxaynu haysanaa 78,000 oo dollar oo USDT-da halkan waxa ku jira coin-kii baa ku jira halka ugu sareysana waxaad ku aragtaa demo trading haddaynu galno qaybta assets-ka qaybtan waxay noogu jira coin-keennii ayaa noogu jira oo lacag dabcan faalsa ah layna siiyey waxa ugu sareysa bitcoin oo waxaynu haysanaa 0.94 oo bitcoin ah waxaanu kaloo halkan ku haysanaa USDT-da oo aynu haysano 9,000 waxaynu kaloo haysanaa OKB oo ah coin-ka uu iska leeyahay exchange-kan OKX oo isagana aynu haysano 100 xabadood oo coin-ka kamid ah waxaynu kaloo haysanaa Ethereum oo aynu hal xaba ka haysano marka dabcan waynu ku trade garayn karnaa oo sayn doonaynu ka yeeli karnaa tusaale ahaan haddaad doonaysa inaad ka trade garayso oo kale waxaad ku dhufan doontaa halkan ay ku qoran tahay trade waxaynu soo galnay qaybtii trade-ka ama wax laga kala iibsanayay si caadi ah u isticmaali kartaa waxbaad iska iibin kartaa waxbaad iibsan kartaa limit order baad isticmaali kartaa yani waxa doontaad ku samayn kartaa sida yani akoonka caadiga oo kale ayuu shaqeeyaa tusaale ahaan haddaynu doonayno wax iibsano oo kale qaybtan sanadaynu soo furno kadibna aynu ka dooranno market order kadibna qaybtan ay total ku qoran tahay aynu gelino lacagta aynu doonayno inaynu iibsano tusaale ahaan waxaynu doonaynaa $200 inaynu iibsano kadibna waxaad ku dhufanaysaa buy marka bitcoin baynu iibsanaynaa inagoo ku iibsanaynaa USDT-da halka ugu sareysa waxaad ku aragtaa bitcoin/USDT marka buy baynu ku dhufan doonaa kadibna waxaad leedahay confirm waynu iibsanay marka saasaynu ku iibsanay haddaynu ka eegna qaybta asset-ka oo u jeedaan dabcan bitcoin-ka aynu iibsanay waxay noogu darsamaysaa un bitcoin-kii hore aynu haysanay 0.94 ka ahaa ayay ku darsamaysaa marka dabcan akoonadan deemadu runtii faa'iido badan bay leeyihiin oo waxyaalo badan baad ku samayn kartaa saynu soo sheegnay waxaad ku tijaabin kartaa istiraatiijiyaadkaaga haddaad tahay qof trader ah oo doonaya maaragtay inuu arko istiraatiijiyadiisu inay tahay mid effective ah oo shaqaynaysa iyo mid ay tahay mid aan la isku halayn karin waxaad ku tijaabinaysaa akoonkan deemada haddaad tahay qof cusub oo doonaya bal hadda inuu barto qaabka yani exchange-yada wax looga dhex iibsado iyo isagoon khaladaad gelin iyadana runtii aad ayay ku anfacaysaa oo waxyaalo badan baad ku samayn kartaa iyadoo haba yaraatee aanay waxba kaa khasaaraynin ama aad waxba ka baqaynin waa taa khayrta waxaan rajaynayaa fiidiyowan gaaban in looga faa'iidaystay habka loo isticmaalo demo account-ka oo runtii aad iyo aad u sahlan tan iyo fiidiyada dambe waxaan kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu